إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الأعزاء weli waxaan ugu jirnaa muxaadaradii aan uga hadlaynay iftiiminta axkaamta ku saabsan soonka waxaynu ku jirnaa qaybtii aan uga hadlaynay asiyaamu lmakruuhu soonka la kahdo waxaa ka mid walaalayaal soonka loo yaqaana soomul wisaal soonkii xiriirinta soomul wisaalka waxa weeyaan qofka muslimka inuu soomo labada maalmood dhexdooda waxba cunin oo maanta uu soomay caawana waa ku daray maalinta xigtana waa ku daray soonka isaga ahna si ay qabaan jumhuurul xanafiya intooda badan sidoo kale maalikiyada iyo xanaabilada iyo waj shaaficida u sugnaaday ahlul cilmina ay u badin waxa weeyaan soonkaas inuu soon makruuh ah shaaficida si agtooda asax ka ah waxa weeyaan sida uu caday imaam an-nawawi oona doortay ibn uthaymin rahmatullahi alayhim reebida nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ka reebay dadka muslimiinta ah inay soonka xiriiriyaan wuxuu ka mid yahay bay dhaheen ama uu noqonayaa baabka loo yaqaan baabu tahriim oo micnaheedu waxa weeyaan in soonka la xiriiriyay oo maalin iyo habeen iyo maalinka lagu sii daro waa soon makruuh la kahdo ama wuxuu noqon karaa soon xaraan ah rasuulullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa soonka mid xiriiriye ilaah baana siiyey subxaanahu wa tacaala awood dadka kale ayna haysanin ummadiisana wuu ka reebay asigoo u naxariisanayo u turayo abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu waradahu ayaa wuxuu yiri qaala nabiyyu sallallahu alayhi wasallam nabi ilaahi wuxuu yiri laa tuwasilu soonka isku xirina oo ha xiriirinina qaalu waxay innaka tuwasilu adigu waad xiriirisaa rasuulkii allah inni lastu mithlakum idil midmihi buu yiri inni abitu anu waan baryaburi yud'imuni rabbi wa yasqini ilaaba iwarabiye ina raashin siiye xadiisku waa sahih bukhari muslim ayaa soo saaray xadiiskan isaga macnihiisa culimadu way isu khilaafeen culimada qaar waxay yiraahdeen nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa loo keenayay wuxuu cunay iyo wuxuu caba alla agtiisa baana loogu keenayay karaameen asila karaameena daraadeed culimo qaarna waxay yiraahdeen waxa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu baahdo ama uu caba ka mashquulinayay dhikriga allah subhanahu wa ta'ala oo ku dhex jiray iyo cadamada ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ka fikirayay culimo kalena waxay yiraahdeen allah subhanahu wa ta'ala nabi maxamed wuxuu siiyay qof wax cunay oo wax abay awoodiisa qofka markuu wax cuno oo waxna caba awood buu yeelana energy buu helayaa soo maahan awooddaas oo kale bilaahay subhanahu wa ta'ala kana waxa rajaxay jumhuurul ulama waa sida uu tilmaamay ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alayhi waana qowlku uu qaatay imaam an-nawawi rahmatullahi alayhi markuu sharxay xadiidkan fi sahih muslim soonka la kaada waxa kamid ah siyaamu yawmi arafata lil haaji qofkii haajiga ahaa ee xajka gudanayay maalinta arafa inuu sooma waa makruuh oo loo kahdaa qofka xaajiga ah maalinta arafa inuu soomo looma sunneeyo bal waa loo kahdaa waa si ay qabaan jumhuur ahli ilmi maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo khulafadiisii toosneed hadigooda wuxuu ahaa maalinta arafa ay sagaal tahay xajkan ay joogaan inay afuraan fadl bintul harith radhiyallahu ta'ala anha waradaha ayaa waxay u dirtay nabiga calayhi salaatu wasalaam weel caano ku jiro nabigana wuxuu taagnaa arafa asagoo waliba awrkiisa saarnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu cabay si ay u arkaan dadku inuusan sooneen xadiisku waa sahih bukhari muslim ayaa soo saaray abdullah ibn umar radhiyallahu ta'ala anhuma waradahu ayaa waxa la weydiiyay maalinta arafa in la soomo waliba idoo arafa la joogo miyaa la soomi karaa oo maalinta arafana ay sagaal tahay faqaal wuxuu abdullah ibn umar xajjatu ma'a nabiy sallallahu alayhi wasallam nabi ilaahay baan la xajiyay falam yasum muslimin nabiga baan la xajiyay mana soomin wa ma'a abi bakr aw bakr baan la xajiyay falam yasumhu muslimin wa ma'a umar baan la xajiyay falam yasumhu muslimin wa ma'a uthman baan la xajiyay falam yasumhu muslimin wala ana asumu aniga soomi maayo wala amuru bisawmihi in la soomana ma farayo wala anha anu man reebay nabiga baan la xajiyay calayhi salaatu wasalaam maalinta arfa soo sooman ma arkin soo kala abu bakr as-siddiq umar uthman anina soomi maayo cidna ma faray inay soonto mana reebaya xadiisku waa saxiix oo waxa soo saaray imaam ahmed iyo tirmidhi imaam albani xadiiska saxiix uu ka dhigay marka si uu fadl badan qofka xaajiga waxa weeyaan maalinta arafa
inuu iska furo soonka asoo ku daynay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo khulafadiisii wanaagsanaa soonka la kaada waxaa ka mid walaalayaal ifraadu yawm aljumcati bisiyaami maalinta jumcaha soon in lagu gaar yeelo waxaa la kahdaa maalinta jumcaha soon in lagu gaar yeelo qofka muslimka ah waa soomi karaa maalmaha dhan laakiin haddii uu yiraahdo maalinta jumcaha si gaar ah baan u soomayaa maadaama aan xaafadii joogo oo reerka aan dhex joogo oo aan shaqo iyo hawl badan aan haynin oo aan nasanayo jumcaha waa iska soomaya inuu yidhahdaayo arrintaas iyada ma fiicno mana wanaagsano laakiin hadduu hore usoo soomi jiro maalin dhaaf soo soomi jiray ama ahayn yacni 3 maalmood maalin uu ka soomi jiray ay maalinta jumcaha kusoo aada iyada way u bannaan tahay ama wuxuu soomayba maalinta jumcaha maalin ka horreysay ama maalinta jumcaha maalin ka dambaysa inuu soomo doonaya idina way bannaanta wax mushkil ay leedahay malahan soonka maalinta jumcaha lagu gaar yeelo ma wanaagsano waa si ay qabaan culimada intooda ugu badan weeyaane waxayna daliilsanayaan adiladan soo socoto maxamed ibn cibaad raximahullahu tacaala wuxuu leeyahay jaabir baan waxa weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam mar reebay maalinta jumcaha in la soomo si gaar ah markaasuu yidhi jaabir nacam nabigu wuu reebay xadiiska bukhaari muslim ayaa soo saaray waxaa kaloo la daliilsanaya xadiiskii abu hurayra radiallahu tacaala canhu waradaahu abu hurayra wuxuu yidhi waxaan maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam asoo dhahaya laa yasuumanna axadukum yowma aljumcati ilaa yowman qablahu oo bacdah qofkiin maalinta jumcaha yuuna soomin ilaa maalin ka horrayso ama maalin ka dambaysa mooyaane nabiga wuxuu leey calayhi salaatu wasalaam qofkiin yuuna soomin maalinta jumcaha ilaa maalin ka horrayso ama maalin ka dambaysa mooyaane marka maalin ka horraysa haddaad soomayso khamiista ah ama maalinta ka dambaysa jimcaho sabtiga haddaad soomaysid ina maalintaas soonta way bannaan tahay xadiisku waa saxiix bukhaari muslim ayaa soo saaray jubayr bint alxaarith tacaala canha waradaaha waxay leedahay ana nabiya sal ly slam dakhala calayha inuu usoo galay nabiga yowma aljumcati maalin jumcaha wahiya saa'imatun idoo sooman faqaalna wuxuu yidhi asumti amsi shalay ma soontay qaalad waxay tihi laa maya qaala nabi wuxuu yidhi turiidiina an tasuumii qadan biri inaad soonta ma rabtaahee qaalad waxay tihi laa maya qaala nabi wuxuu yidhi fa afdir afur jubayr bint alxaarith tacaala canha waradaaha oo min ummahaati lmu'miniina mu'miniinta hooyinkooda ka mid ah ayaa waxay tihi nabiga baa ii yimida calayhi salaatu wasalaam aniga oo sooman markaasuna wuxuu iigu yidhi bay tihi shalay ma soontahe markaasa maxay tihi maya shalay khamiista ma aanan soomin waayo biri sabtiga ma soomi rabtaahe markaasay tihi maya haddii iska fur buri soonka mar haddii aadan shalay soomin birin ina soonta aad rabin maalinta jumcaha soon ha ku gaaryeelina iska fur buu nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiisku waa saxiix bukhaari ayaa soo saaray waxaa kaloo culimadu daliilsanayaan oy leeyihiin nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi laa takhtasuu leylata aljumcati biqiyaamin min bayni layaali habeenkii jumcaha istaagid ama qiyaam gaar ah ha samaynina walaa takhasuu yowma aljumcati maalin jumcaha ku gaaryeelina bisiyaamin min bayni alayaami maalmaha dhexdooda ilaa an yakuuna fii soomin yasuumu axadukum qofkiin soon oo hore u soomaya mooyaane habeenka jumcaha salaatuleyl aan lagu gaaryeelin maalinta jumcahana soon ayaa lagu gaaryeelin buu nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiisku waa saxiix imaam muslim ayaa soo saaray ibnu xajar alcasqalaani raxmatullahi calayhi fatxulbaariga wuxuu ku leeyahay yustathnaa min annahyi nahyi waxaa laga soo reebaa man saama qablahu aw bacdahu qofkii jimcaha maalin ka horaysa sooma waa khamiisa ama maalinta kadib soomaya waa sabtiga aw ittafaqa wuquucuhu fii ayaamin lahu caada ama waxay kusoo aaday maalintii jimcaha caado oo hore u lahaan jiray oo maalmo uu soomi jiray maalan qofku wuxuu soomi jiray bur ayaamulbiid ama wuxuu yacni kusoo aaday caado oo hore u lahaan jiro sida yowma carafay kusoo aaday yowma carafa maalinta jimcaha keliya kusoo aaday waa soomi kartaa buu leeyahay ama maalinta caashura maalin jimcaha kusoo aaday waa soomi kartaa wax mushkilahay leedahay malahan arrinta noocaas waa muhiim in ugu baraarugo walaalayaal haddii maalintii carafo oo aad soo soomi jirta maalin sabti ay kusoo aada ama maalin jimca ay kusoo aada bidaatiha waa soomi kartaa soonka maalinta aad soomaysan ma ahan inaad u qasdaysid maalinta jimcaha ama maalinta sabtiga ee waxa loola imaanaya waxay tahay maalintaas xurmada ay leedahay oo bisha carafa ay 9 tahay oo yawmu carafa ah ama yawmu caashura wuxuu doona ha noqdo markaan soo gabagabayna soom yawmul jumcati waxa weeyaan maalinta jumcaha in soon lagu gaar yeela jumhuur culama say qabaan waa makruh ilaa xaaladahan soo socda laga soo reebaa waxa laga soo reebaa qof hore u soo soomi jiray midna wuxuu ahaa qofkaani maalin inuu soo maalin afuro maalinta uu soomay waxa ku soo aaday jumca ama waxa dhigay qofka laba maalmo inuu soonka furo maalin uu soomo labadii maalmood uu furnaa ma ahe maalinta uu soomay ay jumca ku soo aado waa soomi sababtoo ah asiga caadadiisa hore baa la fiirinaya sidoo kale qofka hadduu maalin ka horeysa soomaya ama maalin ka dambaysa uu soomaya lama kahdo waxa kaloo la kahanayna maalinta jumcaha in la soomo haddii qofkan soon hore u soo lahaan jiray ku soo aaday maalan yawmu carafa ku soo aaday yawmu caashura ku soo aaday inuu waa soomi karaa sidoo kale qofka haddii soon waajib lagu leeyahay oo waxna waxa leeyahay soonka waajibka ah uu qadayn karaa maalinta jumcaha kaliya darabta ha noqoto soonka waajibka inuu qadeeyo ayaa u bannaan soonka la kada waxaa kaloo kamid walaalayaal ifraadu yawmi sabti bisiyam maalinta sabtiga ah soon inuu gaar yeelo maalinta sabtiga soon tadawuc sunna ah
oo caado hor u lahaa jirtaan aan waafaqin ama maalin ka horeysa aan la soomaynin ama maalin ka dambaysa aan la soomaynin arrintaas iyada culimadu isku khilaafeen culimada qaar waxay yiraahdeen maalinta sabtiga ah soon lagu gaar yeelo waa la kahdaa sababtoo ah maalinta sabtiga oo soon lagu gaar yeelo waa maalintaas oo la weynay waxaa marka ka xasilaya in loo ekaado yahuudi waxaan ognahay yahuudu maalin sabtiga bay weyneeyaan marka haddii maalin sabtiga soon lagu gaar yeelo waxaa ka soo baxaya maalinta in la weynay oo wixii yahuudi ay doonaysa lala yimiday jumhuurul culamaa waa xanafiyadii iyo maalikidii shaafici waana sida xanabilatu muctamadka ka ah waxay leeyihiin arrintaas ida ma banaano oo maalintaas sabtigan la soomaayo waa makruuh waxayna dilaysan hadalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam laa tasuumu hasuumina yowma sabti maalin sabtiga hasuumina ilaa fima iftarada allahu calaykum ilahi wuxuu idinku farad yeelay mooyaane fa in lam yajid axadukum midkiin hadduusan helaynin ilaa lixaa cinabatin cinibka qolofkiisa ama yani maratay maqaarkiisa ow ama cuuda shajaratan ama geed laantiisa mooye wax kale hadduusan helaynin falyamduqhu ha calaanjiib buuri oo geedka ha qanino inuu soonin ha muujiya xadiisku waa saxiixo abu daawud iyo tirmidi iyo geyrkood ayaa soo saaray imaam albani xadiis saxiix buu ka dhigay waxay la mid tahay maalinta sabti maalinta jumcahan ka soo hadalnay oo haddii ay maalin caado lahaan jiro qofka ay soo waafaqdo waa dhib ma laha waxaa la diidaya marka maalinta sabtiga soon in lagu gaar yeelo oo aan horena caado usoo lahaan jirin ama maalinta ka horreysay oo jimcaha ama maalinta ka dambayso axadda aan lala soomaynin haddii kusoo aada maalin carafo oo kale ama cashuura oo kale idana way bannaan tahay taana jimcihii way kala mid tahay soonka la kahda waxaa ka mid walaalayaal bisha rajab in soon lagu gaar yeelo bisha rajab oo soon lagu gaar yeelo ama maalmo bisha ka mid ah oo soon lagu gaar yeelaya sida qaar ay sameeyaan oo ah 27 ilaa wixii 27 28 ilaa 29 bisha rajab baa la soomayaa arrintaas idan meel ay ku sugantahay lama yaqaan bisha rajab waxa la soomi karaa qofkii hore dhaqan u soo lahaan jiro isniin iyo khamiis soomi jiray amahan ayaamul bid soomi jiray waxaana muhiim in lagu baraawo walaalayaal bisha rajab daraadeed baan ayaamul bid ku soomayaa ama maalinta khamiis maalinta isniintan u soomaya arrin jirta ma aha naftirkeeda qofku waa inuu hore dhaqan u soo lahaan jiray oo soo soomi jiray maalinta isniinta iyo khamiista ama ayaamul bid marka bilihii hore bay la mid tahay ama rajab 27 markay gaartaa la soomaya wax daliil oo loo hayo ma jirto soonkaasina noqon ma soonkii nabi maxamed loogu dayanay calayhi salaatu wasalaam in la iska ilaaliyo baa fiican oo waxaas laga digtoonaado maxaa jira maalmaha gaar ah bisha rajab oo cibaado lagu gaar yeelo waxayba keeni kartaa in loo ekaadaba qoladii jaahiliga waxay sameyn jireen bishaas way weynii jireen jaahiliyada marka lama rabo in jaahiliyada loo ekaado waxa noo fiican walaalayaal soonkeena in noqdo soon waafaqsan sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam bisha rajab cibaado si gaar ah loogu gaar yeelo oo aan cibaadooyinkii bilaha kala sameeyna aan ahayn adilla ku soo aroortay haddaad aragta xataa adilladaas imaa daciif inay tahay wa imaa inay mawduuc tahay imaam shawkaan raxmatullahi calayhi kitaabkiisa saylul jaraarka wuxuu leeyahay lam yarid fi rajab على الخصوص سنة صحيحة ولا حسنة ولا ضعيفة ضعفا خفيفا رجب سنة قاره كسارة قاريريس مجرت أو صحيحة مد حسن حتى مجرت ودرجة حسنة ولا مد ضعيفه ضعف جيس وخفية مجر بل جميع ما روي فيه وحب بش رجب لجوري لما انتود على خصوص قار أهان بش رجب لجوري إما موضوع مثل الدجي إنه يهي مكذوب لبين أبورتي أو ضعيف شديد الضعف أما ضعيف ضعف يسؤدري إنه يهي هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته